Ani wanaagsan idil ahaantiinba maanta waxaan ku soo qaadan doonaa falanqaynta kulamadii la ciyaaray Champions League kulankii dhex maray Liverpool iyo Inter Milan dhinaca kale waxaan soo qaadan doonaa kulankii kala dhex maray kooxda Bayern Munich iyo kooxda kale Salzburg sidoo la socotid wararka ciyaaraha ku xidhna channelkeena Champions Somali Sports hadana mid kamid ah kulamadii la ciyaaray Champions League kooxda Liverpool ayaa guul ka gaadhay kooxda Inter Milan lugta hore wareegga 16 ee Champions League laba gool ay u kala dhaliyeen ciyaaryahanada Firmino iyo Mohamed Salah ee Liverpool gool ku gaadhay kooxda Liverpool ayaa waqtigii horeba lagaga naxsaday kubadda birta ugu dhuftay ciyaaryahanka Calhanoglu kooxda Liverpool ayaa la kulantay cadaadis badan labadii qayboodba tababaraha kooxda Liverpool Jurgen Klopp ayaa hal mar wada bedelay saddex ciyaaryahan oo kala ah Sadio Mane, Fabinho iyo Elliott waxaanu keenay saddexda ciyaaryahan oo keenay waxa weeyaan ciyaaryahanka Jordan Henderson, Luis Diaz iyo Naby Keita waxaana saddexdan bedel ee la keenay noqdeen furaha bedelka ee u horseeday kooxda Liverpool inay guul gaadho kulankan ciyaaryahanka Firmino ayaa gool u dhaliyay kooxda Liverpool daqiiqadii 75aad kadib markii uu kubad madaxa ku qabtay goolka kooxda Inter Milan kubaddan ayaa koorna soo laaday ciyaaryahanka Jordan Henderson kooxda Liverpool ayaa si weyn u dabaaldegtay maadaama ay marti ku ahayd garoonka San Siro kooxda Liverpool ayaa 8 daqiiqo kadib la timid goolka labaad waxaana uu dhaliyay ciyaaryahanka Mohamed Salah oo xirada ganaaxa ka dhexlay kubadda uga booday ciyaaryahanka Ibrahim Konate kooxda Liverpool ayaa guul ku gaadhay 2-0 wareegga hore lugta hore Champions League lugta labaad ayaa lagu ciyaari doonaa garoonka Anfield kooxda soo qaadana kooxda Bayern Munich ayaa waqti dambe barbara ka bariday kooxda Salzburg ay marti ugu ahayd qaybtii hore ayay gool ka dhalisay kooxda Salzburg qadii 21aad waxaana dhaliyay ciyaaryahanka Chukwuemeka Adamu ciyaaryahanka u ciyaara kooxda Bayern Munich ee Kingsley Coman ayaa ka badbaadiyay gool darro isagoo gool u dhaliyay daqiiqadii 89aad ciyaartan ayaa ku soo idlaatay 1-0 waana lugtii koobaad ee Champions League lugta labaad ayaa lagu ciyaari doonaa garoonka kooxda Bayern Munich ee Arena intaas maanta waxaan ku soo hasmeeray barnaamijkeena ciyaaraha aynu ku falanqeynayno kulamadii la ciyaaray horyaalka Champions League